aniga waxaan warsaday nin gaal asal ah oo burundaysa oo mujaahidiintu soo qabteen ana afkay ku weydiiyey walaalkii tarjumay bas ayaa magnoo dhaxay waxaan weydiiyey waxaan ku yiri maxaad noogu soo duushay wuxuu yiri waxaan u soo duulay waxaan loo sheegay qowmiyad yar oo nasaara ah oo Soomaali joogta oo waxa way niman al-shabaab leeyahay ay gumaadayaan inaad u gurbataan aad ka rabaa gurbadan ku limid waa askari boodaysa way waxaan ku yiri haddii al-shabaab la idin soo sheegay al-shabaab anaga ah maxaad hooyooyinka aad u leenaysaan oo caruurta yararka aad u leenaysaan oo madaxda u garaacaysan yaan weydiiyey wuxuu caruurtuna berri waa shabaab hooyooyinka iyo aabbayaasha shabaab ayaga dhalay wallahi saas u dhah ninka marka soo duulay ee waddankayga igu yimiday meeshaan u koreeya ku dhashay igu yimiday miyaa dulmiga leh oo gardarrada ee duulaanka wada mas anigaa wada ninka soo duulay miyaa gardarrada leh mas ninka isdifaacay waxaan leenahay asal al-shabaabna ku baxira duulaanka maxaa la yidhahdaa gaaladu magaciyo sijina kuma xira islaamnimo ku xiray Sheekh Cali Maxamuud Raage waxaad ku celcelisay in caqabada wadankan haysata ay yihiin gaalada dawladda federaalka ah iyo wadaadaha hadda aad ka hadashay waxay leeyihiin gaaladan wadanka wayba isaga bixi lahaayeen ee waxay u joogaan waa al-shabaab dartood dagaalada wadanka ka socda arrimahaas ayay u joogaan taas maxaad uga jawaabaysaa ingiriisku markuu wadanka ku soo duulay shabaab yaa joogay oo sidna Cabdulla Xasan uu dagaalamayay talyaanigu markuu soo duulayay mashabaab joogay Boortaqiiska markuu soo duulayay Axmed Gurey iyo halka shabaab baa joogay waa waxaan la rabo muwaasiin dadka in lagu